أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت على الله وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد وعزين سلام يا بابلاشين مع النورة هذيكتيني مع النورة channel واتقانان ولبا أول هرع سو قلي شرطوا أوغيدين عند كارين محوها everything أو أي دك تعليه لكن إن شاء الله مرة سومالي درفسن تهاي ما سو قلين دونا عنتو أو سومالي إنه هالقف وباهن كتيرين oo gurigooda ugu imanaya bashqadaha insha Allah markaasaan ku soo noqonayaa hadii alla idmo waayo dadka dhibaataysan inaan la qaybsaday weeyaan walaalayaalow caloosheenii nafteena inaan ka fikirna ma ahan waa inaan xataa dadkeena la qaybsana dhibaatada iyo gaajada iyo haraadka waayo markay daawadaan waxay dareemayaan baahi wixiina way xiiseynayaan mana samaysan karaan mana cuni karaan mana gadan karaan waayo awooda ku iibsadaan ma haystaan marka saadaraadad baan ma aragtay ugu bedelay sheekooyin iyo hadal ugu bedelay iyo waxyaalo yaryar waana ah youtube-kayga inuu kala go-o ma rabo insha Allah inaan dadkayga hawada kala xiriiraan doonayaa oo kala socda midda kale waxaad ogtihiin in ma aragtay maan dhaweyto viruska coronavirus la dhaho inuu ka dilaacay wadanka China ilaa amarkii viruska wuxuu ku bilowday laba arrimood oo isdaba socda isku daba socda ayuu ku bilowday haddii ogoon cidii ogna way ogtahay beenna ma fiicna beenna kama sheegayo youtube waxyaalo rasmi ah soo geliya oo beenna ahayn wax jiraan aan ka hadlaa mar walba viruska wuxuu ku yimid laba arrimood oo iswata oo isgarab socda arina waxay tahay dhinacna dawladii baa waxay abaabuleysay qorshana ay waday dawladda China quraanka kariimka ay ku bedelayso waad ogeydeen in bil iyo laba bilood ka hor ay ku dhawaaqday quraanka kariimkeena wax ka bedelayso nabiga hortiis baa wax la bedeli waayay sallallahu alayhi wasallam horta ma xumo dawladii inay wax ku kacdo laakiin waxaa fiican inuu shacabkiisa ka celiyo waayo shacabkaaga haddii kuugu raaco musiibada wadanka dhan buu saameynayaa dad iyo duunyo wuu ku dhacayaa musiibada way ku dhacaysaa sababtoo ah waad ogeydeen Soomaaliya waagi culimada la dilay wixii ka dhacay Soomaaliya oo ayna hal qof shacab ka mid ah uusan harlin hadda ilaaha wax laga baqa ilaaha mid laga baqa bini aadam adoo kale inaad ka baqdo oo u sheegto ma aragta qaladkiisa waa wax yacni ceeba waa wax fiican macnaha qaladkiisa inaad u sheegto qof bini aadam qaladkii uu ku socdo iyo wadada uu ku socdo inayna sax ahayn ood ka celiso bay diinta islaamka faraysa marka waxa weeye dawladda Soomaaliya waagiiba waad ogeydo markii laga aamusay oo loo sacabtumay xataa saan maqla aniga markaas waan yaraa oo aniga maalinkaas soo qaxaynay 1991kii 4 sano jiray 3 sano iyo bar 4 sano wax dhiman maantana 3 sano weeyaa wadankii laga joogaa oo waad ogtihiin muxuu ahaa 27 sano marka 27 sano dawlad maan arag على حال waxaan rabaa Soomaaliyeey naadin sheego mid bini aadamka ilaahay waxa ugu qurux badan uguna fiican dawladiisa hadii qalad galo wadan shacab la dawlad la hadii dawladaas ay qalad gasho inuu shacabka kaco oo uu ka celiyo ayaa fiican waayo wanday waa dhimanaysa inta nooshahay naftu meelna kaama jirto way ka bixi hada dhimanaysana wanaag ku dhimo kaba soo qaadada dawladda China
shacabkeeda way aamuseen laakiin waxaa hadlay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin oo ilaahay ugu mahad celinayaa dadka caalamka dowladaha caalamka gaal islaamba wala hadlay waxay dhaheen warniyaho arrimahan ha isku soo faragashanin arrimahan oo kale ha isku soo faragashanin ayaa lagu yiri oo dowladaha waaweyn baa ka hadlay oo dowladaha islaamkii baa ka hadlay qofaan ka hadli mana war waxaan ha isku soo faragashanin wax kale ka hadal baa la yiri maya mayuu yiri ku adkaysta maya waana wax ka bedelo arrintii iyadoo laga wada hadlayo oo macnaha lagu murmayo dowladaha caalamka iyo dowladda China ka wada hadlayaan ayaa waxaa dhacday naag Chinese oo gobolka Wuhan la dhaho joogta live ba usoo gashay xataa dhageysta hadalka live ba usoo gashay wadanka marka waa wadan weyn laakiin gobol kamida Wuhan ayay joogtay naagta ayaa waxay sameysay video bay soo qaadatay live bay soo duubaysay waa laga saaray hadda YouTube-ka waxay soo qabatay fiidmeer ma ilaahan kugu dhaariyo ma fiidmeer baa u qalma in la cuno oo xataa ama agtiisa la istaago iska daa cunitaane in macnaha la agmaro oo lala hasaawo oo lala sheekaysto oo lala ciyaaro uma qalma fiidmeer waa shaydaanka qayb kamida weeyaan fiidmeerka xataa shaydaanka waxyaaluhu adeegsaday ka mid tahay walciyaadu billaah ilaahay hanaga ilaaliyo sharkiisa marka naagti waxay sameysay fiidmeerkii bay soo qaadatay waxay tiri maanta waa maalin farxada waxaan rabaa maanta aad baa u faraxsanaa waxaan doonayaa inaan maanta aan tijaabiyo bahalkan aan tijaabiyaan doonayaa oon kariyo fiidmeerkan dadkina saas bay u tusaysaa marka fiidmeerkii naagtii way soo qaaday waxay sameysay way karisay markay karisay ilaa amarkii way karisay tiri waan kariyay tiri markay karisay bakiyo la jarjarana waxba lagu sameeyna xataa xidida laga saarin moogta xayawaanka qaar sun bay leeyihiin suntaas markaad jarjarayso waad ka saara xididada dad baa yaqaano sida maska oo kale sunta laga saara laakiin ayada asagoo sidiisa dabka saarta oo la qalin xataa oo la jarjaran bas markay karisay bay soo qaaday way goosatay madaxiisa ka bilowday saabay afka u gelisay markay saa u gelisay goosatay ay rugtay bay tiri alla waa macaan bay tiri way liqday saada u liqda gabadha ma neefsan meeshii ka dhacday markay dhacday baa dadkii ka ag dhawaa guriga joogay baa la cararay markay la cararin dhakhtarkii way la aadeen dadkii qaaday ka ag dhawaa iyo dadkii guriga la joogay iyo dadkii ag maray oo la ag mariyay gabadha naagtaas iyo dhaqaatiirtii horta way naf baxeen maalintaas dadka fayraskii baa marka ayada midkeeda ka baxay way afkeeda la kala jiiday waxaa kasoo baxay qaacba kasoo baxay wixii kasoo baxay afkeeda ayaa dadkii ku faafay waa intii yareeda fiidmeerka ay cuntaa hal xabo bas haddana mid weyn buu ahaa laakiin waxaas dhahay kan oday weyn buu ahaayo macnaha mid sanado jiro oo mid yar ma ahayn aad buu u weynaa laakiin waxaan is dhahay waxaan waa cimri dheer iyo mid cimri dheer buu ekaa macnaha waqti dheer noolaa ay xaal warkii ay idinku daalinin fayraska hadda coronaviruska la dhaho halkaasuu kasoo furcamay oo halkaasuu kasoo go-ay dadka sidayba ugu faafay dhaqaatiirta way dhinteen dhaqaatiirta iyo shacabkii meesha ku jiro dhan way dhinteen adigu way sii faaftay amin dambe marka 2 wiil kadib baa la ogaaday waxan iyo sidii wax ku dhacaan marka naagti gurigeedii baa la tagay videoga ay duubaysay baa la soo arkay arrinkii halkaas ka bilowday kadib bay bilaabeen daawo u qalma inay soo saaraan daawadiina 2 wiil bay ku qaadatay hadda waan ku guuleysanay leeyihiin laakiin waxba laguma guuleysan dadkii badanaa way dhinteen boqolkiiba hadda 40 baa dhamatay dadkii intooda badneed boqolkiiba muxuu ahaa 20 way xanuunsan yihiin soo bini'aadamka 100 bay ka kooban yihiin marka 40 xanuunsan yihiin 60kiina 20 ilaa 30 ay ka xanuunsan yihiin wax yar baa soo haray aad u yar marka waxa weeye musiibada in dawladda iyo shacabkaaga lagu eegto lagu fiirsado ma aha shacabkana waxay sameynayaan waa inay dawladda ka celiso dawladda waxa ay sameynaysaa waa inay shacabkeeda celiso marka waxa weeye waa in aan la isfiirin oo la isku taageerin xumaanta iyo dhibaatada
iyo dulmiga iyo aflagaadada. marka walaalayaal saasaan uga baxayaa. mid xigtana waxaan wax yar baan rabaa inaan ku daro. virus hadduu yimaado sideedaba ama hargab reerka ku dhaco guriga joogo kaliya sharoobo iyo kaniini iyo irbad la qaato waxba ma taro, waayo virusku wuxuu ku jiraa guriga. si wax walba daaqadaha guriga fur, daaqadaha qolalka dhan fur, iyo fadhiga iyo muxuu ahaa jikada, meel walba oo daaqado kuleediyo qadada fur. kadibna waxaa samaystaa markaas wixii soo kacdo haddaad ciyaal leedahay ciyaalkaaga dirso oo cuntadooda waxooda siiso, oo ka ilaali saabuun ugu dhaq gacmaha, wejiga ugu dhaq, meel walba. adigana sidoo kale isnadiifi meesha intaada cunto karinta ku bilaabin. eriyada dhan tirtir oo bahal bakteeriyada loogu talagalay baa jira, baa idin tusayaa. kanaad soo gadani, kan aad buu u fiican yahay. aashituu leeyahay, waxaana ku qoran boqolkiiba 99. waxa way bakteeriyada waa dhimanaysaa, waana u jeedaan waan filayaa. markaas magaciisii maasha allah bakteeriyada loogu talagalay. marka waxaa samaysaa walaalayaalo, waa naabkiin qoyan oo meesha ku jiro. qofkaan aqoonina waan barayaa, kii yaqaanana wuu yaqaanaa. saasaad usoo goyni naabkiinka, aashitaa kasoo uri, meelahaad ku tirtiraysaa miiska iyo meel walba saa ugu tirtiri. mid kasta biyuu wataa, wuu qoyan yahay. tv-ga eriyada, remoodka tv-ga, taleefanada, miisaska, muxuu ahaa alwaaxyadan ma aragta meelahan, iyo waad ku tirtiri. meelaha naalka laga daaro ayadana sidoo kale waa tirtiraysaa. musqusha aad u saar, muxuu ahaa xooga saar musqusha. waxaa sameynay meesha lagu kaadiyo korkeeda iyo daboolka, meesha lagu farxasho, meesha ma aragta muraayada iyo albaabada qolalka, albaabada guriga laga baxayo, irida iyo qolalka musqulaha ayadana waa lagu tirtiraa. yaa baashaan bakteeriyada dishaa, iyadoo ingilishana waatanaa. marka bakteeriyada dishaa boqolkiiba 99 waxay dilaysaa bakteeriyada dili. saas baad sameynay inta uu guriga ka baxaya hergabka. haddii hergab idinku dhaco lacala viruskana hadda socdo, waxaa la yiri sidii hergabka ku bilowdaa. oo qufac baad arki badan iyo hindhiso badan iyo ma aragtay duuf badana kaa imani iyo qandho. haddaad inta aragtidna ha fariisanin guriga, ha isku soo xirin. dhaqtarka aad adiyo faamilkaagaba dhaqtarka aada haddaa isku aragtaan xanuunka. waxaana ku dadaashaa insha allah waxyaalahan. weliba waxaa samaysaa derbiyadana waad marmarini, xoogaa derbiga waad marmarini. fadhiga meelaha la fariisto u badan oo kale halkaa la taabana, meelaha la taabto bini-aadamka gacmihiisa ku soo aadayo waad tirtiri. maasha allah intaasunu ku egyahay arrintan usoo galay meesha. waxaana idin leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada. waa walaashiina Macanuura channel, meel walba aad joogtaan soo dhawaada. like iyo share iyo subscribe ii saara, commentna ii soo qora insha allah. waxaana idin leeyahay welcome meel walba aad joogtaan. Soomaali Maxamed alla dadaalo, muxuu ahaa every 5 minutes every time oo ama waqti kasta oo aad wax ku cuntaan gacmaha soo dhaqa oo muka soo dhaqa insha allah. khayr baa idin rajeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.